aanu ogaano xaaladda dhabta waxaan soo gaarnay habeenkii xalayto saacadihii ugu dambeeyay magaalada Faransiya gaar ahaan goobta Soomaalidu ay ku nool yihiin halkan oo aan anigu laftaydu seexday mid ka mid ah qolalka ay Soomaalidu degan yihiin oo runtii markaad eegto isagu ka duwanaa qolalka kale ee Soomaalida hase ahaatee taas ayaan ahayn in la oran karo waxay ka siman yihiin guud ahaan tirada iyo cadadda ay Soomaalidu ku degan yihiin qolalka iyadoo qaarkoodna ay degan yihiin 4 iyo intii ka badan halka inta nasiibka u yeelataan ay degan yihiin ku degan yihiin 2 ama 3 suganahay magaalada Faransiya ee dalka Talyaaniga waxaan doonaynaa inuu soo gudbino xaaladda dhabta ah ee ka jirta guud ahaan dalka Talyaaniga Soomaalidu marka ay ka soo kicitimaan dalkooda Soomaaliya ay rajaynayaan inay door bidaan sidee u soo gaari lahaayeen qaaradan Yurub wadamada ugu horeeya ee soo galaan waxa kamid ah dalka Talyaaniga Malta Greega iyo waliba dalka Hungary kuwaas xaaladooda nololeed ee dhabta ay ka jirta aan ahayn tii markii hore ay rajaynayeen marka laga tago inta nasiibka u heshay inay shaqeeyaan ayaa waxa jirta kumaan kun oo Soomaali ah oo iyaga nasiibku aan u saamaxaynin inay helaan shaqooyin ay ku dabaraan naftooda iyo noloshooda tani laga soo bilaabo 1990kii markii ay dhacday dawladii dhexe ee uu hogaaminayay kacaanku ee dalka Soomaaliya waxaa jiray barakac xoogan oo dadka Soomaaliyeed haystay kaas oo ay ku galayeen wadamada jaarka isla markaana ay ku doorbidayeen inay helaan ammaan dhaama dalka Soomaaliya xaaladda nololeed ee ka jirtay magaalada Faransiya ayaa runtii ah mid ka duwan sida ay dadku marka hore filayaan intaanay ka soo kicitimin dalkooda hooyo waxaana intii aanu ku sugnayn magaalada Faransiya aanu isku daynay inaanu soo tabino xaaladda dhabta ee halkaasi ka jirta iyadoo aanay noo suura galin inaanu wajiyada dadka halkaasi ku sugan soo gudbino sababo la xidhiidha iyagoo aan jeclaysan in muuqaalka runta ah ee goobta ay ku sugan yihiin aanu naxdin gelinin waalidkii ay ka soo tageen ee ku sugnaa dalkoodii hooyo kuwaas oo filaya in ubadkoodu ay gaareen meel ku habboon isla markaana u dhaanta noloshii hore ee Soomaaliya aniga laftaydu goobihii aan ku sugnaa ayaa telefishinka caalamiga ee Home Cable TV oo isku dayay inuu diyaariyo qaabka nolosha halkaasi ka jirta ayaa waxaanu soo gudbinaynaa xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta guud ahaan dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Faransiya waxaana intii aan ku sugnaa meeshaasi aan isku dayay inaan dhadhamiyo macaanka iyo qaraarka ay leedahay ku sugnaanshaha guri noocaas oo kale oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 200 oo qof oo Soomaaliya kuwaas oo isugu jira rag haween dumar iyo waliba caruurta yaryar oo iyaguna qaarkoodna halkan ku dhasheen qaarkoodna hooyooyinku ay la yimaadeen Mustafa Xaaji Aadan Haarun telefishinka caalamiga ee Home Cable TV Talyaaniga